السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا عشركي research methodology إن شاء الله سيد بلانت إهد بوحان قام دونا جبتر 1 جبتر كان وجبتر أساسه علم بارسته جبتر كان وأتصيف عن أفهمته وحكا عاون دونا إن research أنت بدن أصيف عن أفهمته مركا إن شاء الله وشرح دونا أصيغ أو قرالنا وإذا ذلك دونا si aad u fahantid jabtarka oo wax badan aad ugu ogaatid intaas waxaa dheer marka jabtarka aan dhameyno ama aad fahanto waxaa lagu diri doonaa assignment cinwaan kasta oo kamid ah jabtarkaas waxaa lagaaga baahan yahay wax la xiriira lagu weydiin doonaa ama waad nala wadaagi doontaa su'aalaha assignmentiga si ay u noqoto course ah two-way communication oo san naqanin inaad dhageysato kadibna aad fahanto oo kaliya laakiin marka aad fahanto waxaan rabnaa su'aalaha lagu weydiiyo iyadoo practical ah oo buugaaga thesis-ka inaad ku dabaqdo insha Allah hadafkaas ayuu noqon doonaa chapter-ku waa chapter 1 ciwaanku waa research methodology waa anigoo ah Dr. Shaafici Shariif Maxamed marka intaas aan kaga gudbno waxaan ku qaadan doonaa wax loo yaqaan outline course wuxuu noqon doonaa what is research importance of research pure and applied research ama action research topic selection tips, background and introduction, problem statement, research objectives or research questions, hypothesis, dependent and independent variables, significance of the study, and summary of research. So intaas inahaas ayuu noqon doonaa hadduu ilaah yiraahdo researchka marka insha Allah inahaasaan uga hadli doonaa hadduu ilaah yiraahdo waxa ugu horeeya waa maxay what is a research muxuu yahay research is a systematic approach to obtaining and confirming a reliable knowledge. Research is a discipline to attempt, research is a disciplined attempt to address questions or to solve problems through collection, analyzing of a primary data for a purpose of description, explanation, generalization, and prediction. So, Anderson 1998, page 6. The main aim of research is to find on the truth which is hidden and which has not been discovered yet. What and how and why things occur, are there any interactions? So intaas ayuu researchku quseeyaa ka research muxuu yahay researchka waa hab cilmiyeysan oo lagu helayo laguna xaqiijinayo aqoon la isku halayn karo researchka waa isku dayga lagu xalinayo su'aalo ama problem aan jawaab loo haynin iyadoo xog la soo ururinayo la faaqidayo kadibna loo sameynayo waxa loo yaqaano generalization oo si guud lagu xinayo arrintaas waxaa sheegay Anderson 1998 page 6 sidoo kale research wuxuu noqon karaa in la ogaado runta qarsan iyada oo aan la soo bandhigin waxyaabo badan oo qarsan ayaa jiro oo run ah laakiin weli aan la soo bandhigin marka researchka waa in la ogaado runta qarsan ee aan weli la soo bandhigin research wuxuu noqon karaa in la ogaado waxa dhacayo maxay u dhacayaan sidee u dhacayaan soo research wuxuu uga noqon karaa in la sheego xiriirka ka dhaxeeya laba doorsoome tusaale ahaan waxbarashada iyo shaqada markastoo high degree ah hesho waa markastoo aad waxbarashadaada ay ziyaado waa markasta oo mushaarkaaga ama shaqo fiican ay hesho so in la ogaado xiriirka ka dhaxeeyo laba doorsoome intaas in ka badan ayuu noqon karaa researchka dabcan ma jirto qeexis la isku wada raacsan yahay laakiin inahaas ayaa lagu qeexaa researchka ciwaanku wuxuu noqonaa type of research to study ama type of research noocyada researchka waxaa jirta dhowr nooc oo kala ah exploratory research, descriptive research, diagnostic research, hypothesis and test research. So muxuu yahay mid kastaba exploratory research waxaa lahaa waa in la ogaado new phenomena oo iyadoo la ogaanayo wax badan oo quseeyo arrinta ama phenomena arrin laga hadlayo in wax badan lagu ogaado waxaa loo yaqaanaa exploratory waa to explore in wax cusub la iqtiraaco wax cusub la ogaado sidoo kale waxaa loo yaqaan descriptive research waa in la ogaado characteristics ay leeyihiin particular thing ama individual ama situation ama group in la ogaado marka hore waxaa loo yaqaanaa descriptive research waxaa jira nooc kale oo yaqaano diagnostic research oo ah
in la ogaado to determine the frequency inta jeer ee wax dhacaan something wax ku dhacaan oo qaabka u soo laalaabtaan iyo association ka dhaxeeyo with something else marka waa laba nooc waa diagnostic laba ay u qaybsamaan oo ah in la ogaado frequency wax ay ku dhacaan iyo in la ogaado association ka ay leeyihiin with something else waxaa kala jira nooc loo yaqaano lie hypothesis test oo loogu talagalay in lagu tijaabiyo doorsoomayaasha xiriirka ka dhaxeeya waxyaabaha la mala awaalayo xiriirka ka dhaxeeya in lagu ogaado noocaas waxaa loo yaqaanaa taasna waa type of research waxaa nooga xig wax loo yaqaano importance of research researchka marka muxuu muhiim u yahay number 1 address the gap of knowledge expand the knowledge educate insights and new ideas indicators gain a new insights into the students sidoo kale marka muhiimaddu waxay tahay researchka oo muhiim u yahay in la ballaariyo aqoonta jirto ana adduunyada cilmiga ka jiro ilaahay ayaa dadka aqoonta baray ama macnaha waxaan adduunyada ka jiro uu maxaa lahaa waa wax rabbaani ama ilaahay uu abuuray soo marka aqoonta dadka ku dhex jirtay in la sii ballaariyo sidoo kale in ardayda ay helaan aqoon cusub marka waxaa kaloo ku xigo what motivates qofka inuu research sameeyo maxaa ku dhiirigeliyo research qofka waxaa ku dhiirigeliyo decide to get a research degree haddii ahaan lahayd bachelor master or PhD iyo sidoo kale desire to service to society qofka inuu research sameeyo waxaa ku dhiirigeliyo ama inuu daraasadii jaamacad ugu qalin jabiyo ama inuu rabo inuu bulshada u adeego okay waxay nooga xig wax loo yaqaano pure and applied research pure and applied research maxaa lahaa pure research waa research is conducted with a particular goal in mind pure research is driven by interest and is a more exploratory in nature than applied research the main purpose of pure research is to advance the knowledge findings of pure research is usually have a future use are not in just meant for the use in the current time pure research is self-explanatory in nature maxaa loola jeedaa inaa researchka pureka ah waa research la amba qaado iyada oo aanan problem markaas la xalinayo gacanta ku hay aan jirin waa research loola jeedo in lagu iqtiraaqo waxyaabo cusub waa research muhiimkiisa ay tahay in la isticmaalo mustaqbalka tusaale ahaan haddii hadda idhaahdo Soomaaliya waxaa research laga sameynaya xidigaha maanta la joogo annaga xidigaha in aan research ka sameyno muhiimad gooni looma laha maxaa xidigaha wixii lagu ogaado Soomaaliya maanta iyo beri ma isticmaalayso researchka noocaas waxaa loo yaqaanaa pure research waa research kasta oo lagu hadlo wax laga hadlo mustaqbalka dhib hadda taagta aan lagu xalinayn cagsigiisa maxaa ah applied research applied research waxaa la yidhi waa research conducted in order to solve a specific particular problem for that reason it tends to be descriptive in nature applied research is conducted with a certain goal in mind the main goal of applied research is to solve a specific problem related to the real life findings of applied research are always focused on the problems at hand rather than focus on something that will happen in the future maxaa loola jeedaa pure research waxaan leeyahay waa researchka la sameeyo iyadoo aanan maskaxda lagu yeelin problem xilligaas taagan oo la xalinayo laakiin applied research waa research kasta oo la isticmaalo si loo xaliyo arrin markaas taagan waa tusaale wuxuu noqon karaa coronaviruska researchka laga sameeyo wuxuu noqonaa applied research maxaa yeelay wixii ka soo baxo isla beri waa la practice garayn karaa marka pureka applied researchka waa research kasta oo lagu xalinayo problem xilligaas taagan haddii aan ka hadlayno dhibaatada jaadka uu ku leeyahay dhaqaalaha Soomaaliya daraasadaas waxay ka soo baxo Soomaaliya markaas way anfacay laakiin haddii laga waxba lagu qoraa waxyaabo aanan maanta taagnayn waxay noqon kartaa pure research so waxaan qiyaasa inay fahanteen farqiga u dhexeeya pure research iyo applied research pure research waxaan ku sheegnay research kasta oo la amba qaado iyada oo problem aan taagnayn waqtigaas laga rabo mustaqbalka in la isticmaalo applied research waa research kasta oo la sameeyo xilliga hadda la joogo laga rabo in waxa ka soo baxo la intifaacsada marka okay intaas marka ugu gudubno marka waxaa ku xigo where do I get my research topic xageen ka helaa research topic arday badan oo jaamacadda waxay kala doolayeen waxaa ku qoraa finance waxaa ku qoraa marketing waxaa ku qoraa economics waxaa ku qoraa IT qofka xaguu wax ku qoraa so marka xageen ka helaa research topic-ga mawduuc ama title-ka waxaan ka leenahay waa topic guud waxaa keeni kartaa topic guud
number one existing literature literature-kada dib u laabato waa keeni kartaa waxaa keeni kartaa social consent arrimaha bulshada waxaa keeni kartaa tutor amaha macalinkaaga oo wax ku baro waxaa keeni kartaa future recommendations dadka researcheriska ah waxyaabaha ay dhaheen mustaqbalka la sameeyo waxaa keeni kartaa what interests or you like about wax adiga aad jeceshahay haddii aad jeceshahay inaad noqoto engineer then engineer wax ka qor iyo personal experience khibradda adiga aad leedahay so inahaasoo dhan waxaa loo isticmaalaa waa meelaha laga helo researchka macnaha social concern hadda bulshada maxaa ka example dadka waxay aad uga cabanayaan tiktok so tiktok wax ka qor arrimaha oo bulshada maxaa kamid ah like ama your experience waxaa khibrad u leedahay ganacsiga wax ka qor so marka wax allaala intaas inta la xiriirtay in kale ayaa waxa ay tahay meesha laga helo topiga okay topic markaa hesho waxaa u baahan tahay topicaaga in narrow down kusoo samayso marka qaarkood qof waxa laga mawduuc iska weynaan inuu qaato marka topic narrow down waxaa u sameynaa the topic will be very difficult to say if it's too broad way adkaan doontaa inaad cilmi baaris samayso haddii mawduucaaga aad u ballaaran yahay so maxaa u baahan tahay narrow down in la soo koro sida sambuski hoos loo soo aado so marka in narrow down lagu sameeyo waxay u baahan tahay dhowr arrin number one geographical area cultural and time frame discipline and population group inahaasoo dhan waxaa loo isticmaalaa in lagu soo koobo research mode macnaha waxaa loo geographical area waxaa wax ku qoraa Soomaaliya waxaan ku qoraa koonfurta iyo bartamaha waxaan ku qoraa Puntland waxaan ku qoraa Somaliland waxaan ku qoraa wherever Jubaland so it can be geographical area waxay noqon kartaa time frame waxaan ku qoraa dowladii kacaanka 22 sano waxaan ku qoraa dowladii rayidka ahayd oo 9 sano waxaan ku qoraa 30 sano ee dagaalada waddanka ay ka jireen so daas wuxuu noqon karaa time frame kaaga qaabkaas ee narrow down soo sameyn kartaa tusaale aan ku siiyay marka topic waxaan ku taa ballaaran la soo gaabiyo example haddii aan dhahno women health caafimaadka dumarka aan ka hadlaa waa aad u weyn soo koob waxaan leenahay women and cancer dumarka iyo kansarka weli waa weyn mawduucaas soo koob women smokers and breast cancer si dumarka sagaarka cabo ee kansarka naasaha ku dhaco waa soo koob okay mid kale aan ku siiyo computer games waa ballaaran mawduucaas soo koob computer games and violence weli waa ballaaran computer games violence and children so you see waa soo degtay okay markaan is u gudbo waxaa ku xigo marka mawduuc ah heshay aad soo koobtay title-ki ciwaanka waxaan leeyahay ciwaanka marka research title is a part of research proposal that is seen by the relevant research R&D committee. A good title predicts the content of research paper. Rarely use observation unless they are commonly known. Identify the variables both dependent and independent. It is limit 5 to 12 words. Use the words that create a positive impression and stimulate the reader interest. maxaa loola jeedaa marka laga hadlayo ciwaanka waxa ugu horeeya oo akhristaha arko ciwaanka waxa ugu horeeya committee ama guddiga jaamacadda ee go'aanka ka gaaray fiyaaska wax ugu arkaan waxaa loo baahan marka ciwaankaaga inuu ahaado mid oo interesting ah waa inuusan iska dheeraan ciwaanka waa inuusan ka badnaanin 5 ilaa 12 ugu badnaan 15 eray waa inuu caddahay dependent independent variables taaganaha iyo tiirsanaha dib waxaa hadli doonaa taas waa in la isticmaalo array abbreviation-ka ana hadii la MMC stands for what nobody knows so ha isticmaal array la soo gaagaabiyo unless ay yihiin array la isla yaqaan sida array waxa UNCHR UNICEF UN AIDS waxyaabahaas oo dhan TB waa wax la isla yaqaan marka arraysna waa lagu ogolyaa marka waxay noo wax la yaqaan marka ciwaanka introduction waxaa la yiri you are attempting to inform the reader about a rationale behind the work and justify why your work is essential in the field. Okay, you must provide your reader with a little background or basic information about the topic you are covering. Start with a broader subject and lead your reader in your specific topic. Show them how your topic relates to the bigger picture. maxaa loola jeedaa readerkaaga tusi sida ay rational macquul u tahay daraasadda inay muhiimta in la qaado justification u sameeyo cudurdaar u sameeyo muhiimadda ay leedahay in aagana fieldigan laga hadlo
sidoo kale waa inaad u profile garaysaa readerkaaga background iyo information la xiriiro wax art inaad wax ka hadasho ku bilow leegid wax balaaran kadibna hoos ugu soo deg so muhiimadda waxay tahay introductionka waa meesha readerka lagu soo jiito hadda maalmaha dambe waxaan arkay ardayda Soomaaliyeed intooda badan marka la introduction qor waxay qorayaan waxaan ka hadli doonaa objective and problem statement research questions research objectives no saas ma ah introduction waxaa laga baahan yahay in aad qofkan u sheegto justification why ay u qalantaa sida in la sameeyo important thing ay leedahay contribution ka ay geysanayso wax qofku ku soo jiidan kadib meesha ku qor kadib programka waxaa ku xigo introduction waxaa ku xigo wax loo yaqaano problem statement dabcan inta aan casharada ku guda jirno marka casharka aan qaato kadib ciwaanka laga rabi doona topiga laga rabi doona ciwaanka laga rabi doona waxa ku motivate gareeya sheegi doonta development independent variable kiisa ka hadli doonta so waxyaabaha aan sheegayno iyadoo practical ah ayaa hadhow nala soo wadaagi doonta oo qoran oo real life oo waxyaabo daraasad lagu sameeyay markaas lagaaga baahan yahay okay waxaan wax loo yaqaano the problem statement muxuu yahay problem statement waxa la yiraahdaa the verb of the problem statement is to introduce the reader the importance of the topic being studied in loo sheego qofka problemka rabo in daraasada lagu sameeyo so problem statement wuxuu ku leeyahay saddex paragraph paragraphka waxa loo yaqaanaa the ideal sida fiicnaan lahayd inay wax ahaadaan describe the goal of ideal situation explain how things should be sida ay wax ahaan lahaayeen qofka inuu sheegto part B or paragraph qeybtiisa labaad describe the condition that prevent the goal state or the value in part A from being achieved or realized at this time anaha sida fiicnaan marka aad sheegto paragraphka waxa waasha waxyaabaha caqabada ku ah in la gaaro sida fiicnaan goolkeeda in la gaaro maxaa caqabad ku ah qaybta saddexaad waxa hadlaysaa the consequence marka caqabadaas waxyaabaha ka dhalan karo iyo identify how your variables to improve the current situation and move closer to the goal iyo daraasadaada sida ay u soo saari karto sidii lagu gaari lahaa hadafkaas okay waxaa lagu yaala problem statement tusaalaha waxaa la yidhi government of Kenya example oo la xiriiro ideal reality-ga iyo consequence-ga sida fiicnaan lahayd sida hadda waxay yihiin iyo caqabadaha ka dhalan kara tusaale marka the government of Kenya has the goal to industrialize the nation by the year 2030 so dowladda Kenya ayaa waxay rabtaa 2030ka inay wadankeeda ka dhigto wadan industrialized ah waa sida fiicneed waxay rabtaa marka small business-ka iyo middle business-ka iyo industry-ga inay isku xirto waa habka ay rabto si ay ku gaarto wadan industrialized ah waa sida fiicneed okay step 2 imo oo ah sida hadda ay wax yihiin waxay tahay the government effort slow growth of micro into small enterprise micro business ka small business ki growth ma sameeyay problem ku jira wuxuu yahay meesha in small business oo growth sameeyo oo middle oo noqdo industry la gaaro laakiin kuwan meeshan kama tagayaan so there's a problem so dowladda marka waxa laga there's a missing middle waxba maqan maxay la qaybta kale warshadii weeyaalin small business ka qaybta dhexey kuwa inay growth noqdaan kuwa kale soo baxayaan tii wala la so qaybta sax waxa la qanay in la investigate the missing middle qaybta la dhahay there's a gap qaybta meesha laga research in laga sameeyo so qaabkaas marka sida fiicnaan lahayd sida hadda ay waxyi iyo waxa maqan oo la investigate iyo caqabadaha ka dhalan kara marka okay intaas kadib waxaan wax loo yaqaan research objectives oo ah hadafka laga leeyahay research-ka marka research waxa la general research objectives describe what we expect to achieve by the project waxa arab inaan ka gaaro project-ga waxa lagu soo bandhigaa research objectives-ka research objectives waxa la should closely related to the statement of the problem-kaaga iyo research objectives-ka waa inuu xiriir ka dhaxeeyaa wixii problem aad soo sheegtay waa inaad objectives aad ka samaysataa the research objectives drive all aspects of methodology including instrument design data collection analysis ultimate recommendation sidoo kale objectives-ka waa meesha laga sii saadaaliyo nooca xogta loo aruurin doono qaabka loo analyze gareyn doono iyo recommendation ka soo bixi doono tusaale haddii aad tiraahdo waxaan rabaa inaan ogaado dabeecadaha dadka jaadka cuno automatically objectives-ka markuu yahay inaad dabeecado waxaa la ogaanaa in daraasadda ay noqon doonto waxa loo yaqaano qualitative maxaa objectives-ka aan ku ogaado marka objectives-ka
wuxuu sii saadaalinaa dadka xogta laga aroorin doono, qaabka loo aroorin doono iyo wax ay noqon doonto. waxaa jira marka objectiveska marka la lahayo there are two. waxaa jira general objectives iyo specific objectives. marka qaarkood waa laga tegi karaa general objective qasab maaha, specific objective waa la qaadan karaa. waxaase muhiim ah in la qaato maxaa lahaa erayaha soo socda. example, to identify, to establish, to describe, to determine, to develop, to estimate. waa erayada marka loo baahan yahay la qorayo objectiveska. waxaa kaloo ku xig wax loo yaqaano research questions. research questionska waxay xiriir leeyihiin research objectiveska. wixii aad ka dhigtay haddaa 3 objectives leedahay waa inaad 3 questions keentaa. ardayda qaarkood waxaa laga yaabaa objectives waa 3, research questions waa 4, ama 4 objectives iyo 3 research questions. no, inta wax allaale hadafkaaga su'aal ka dhig. su'aalaasna hadda waxaa rabaa inay ayaga objectiveska oo su'aal loo bedelay iyadoo la isticmaalayo what, why and where. so example-ka meesha ku yaalo ayaa ka aragtaa why have organizations introduced early retirement iyo to identify organization objectives for introducing retirement scheme. waxaa nooga wax loo yaqaano hypothesis. muxuu yahay hypothesis? hypothesis waa statement that researchers expectation concern relation between the variables in the research problem. hypothesis is status what the researcher thinks about the outcome study will be. hypothesis ensure the collection of evidence necessary to answer questions based on the statement of the problem. Statistical hypothesis consist of null hypothesis and alternative hypothesis. So H0 and H1. Researchers usually use their conditions of the result of testing their hypothesis. So hypothesis muxuu yahay waa mala awaalka aqoon-yahanka, waa scholar gas ayaa la yidhahdaa. qofku waa inuu si mala awaali karo waxyaabaha dhici karo asaga oo la traderka fiirinayo. tusaale ahaan haddii ay isku dhacaan Liverpool iyo Stoke City yaa badinayo. so haddii la weydiiyo qof expert ah oo kubadda cagta yaqaano wuxuu leeyahay there's a high probability ee Liverpool ku badin karto. maxaa yeelay daas markuu waxay naqanay hypothesis waa la sii saadaalina. Janis Stoke City ugu badan karta Liverpool maybe 5%. tusaale kale usoo qaado Liverpool iyo Barcelona championka dadka dhan waxay dhahayn Liverpool badin doonto, Barcelona badin doonto, laakiin waa laga badiyay. marka 5% Janiska ee Liverpool haystay ee ugu badan 95%-ga ee Barcelona haystay. marka hypothesis waxaa la mala awaalka aqoon-yahanka. haddaan casharada aan akhrinin imtixaankaaga maxaa ku dhacay? hoos u dhaca. xiriirka ka dhaxeeya akhris la'aanta iyo natiijada imtixaanka. so marka hypothesis waxaa la mala awaalka aqoon-yahanka. so dabeecadaha hypothesiska iyo waa inuu ahaada waa inuu ahaada as a question, waa inuu state empirical evidence, waa inuu ahaada like no comparison, waa inuu wax sameynayo wax isku dhigayo. sidoo kale variables related to iyo theory oo la xiriira. marka tusaalaha marka qofka hadda wax muu sheegay principle-ka hadda wuxuu yiri why have 30 scholars of our senior been going down. so all these people sawirada meesha ka muuqdo waxay sameynayaan hypothesis. waxaa loo wax loo yaqaan significance of the study oo ah muhiimadda ee leedahay daraasadda. significance of the study marka waxaa lahaa waa the study provides information to the reader how this study will contribute. your problem statement can be gathered to identify the specific contribution to your study. problem statement significance waxaa lahaa daraasaddan waa ay muhiim u tahay in la ambaqaado. ana maxaa hurdada kaa soo kiciyey oo ku dhahay research hala sameeyo waa waxaan ay muhiim u yihiin. so marka waxaa laga baahan yahay inaad sheegto contribution-ka ay geysanaysa daraasadaada. daraasadaada maxay ku yabeeyay aqoonta hadda jirto maxay ka sheegay. sidoo kale wuxuu xiriir leeyahay kan problem statement-iga. waxay ogaataa problem statement-iga objectives-ka xiriirka ka dhexeeya, hypothesis-ka xiriirka ka dhexeeya, significance of the study xiriirka ka dhexeeya. daraasaddan maxay muhiim u tahay, problem-ka la soo sheegay maxay contribution u geysanaysaa. marka waa qofka inuu sheego dhowr contribution. wuxuu sheegaa theoretical contribution iyo practical contribution. daraasaddaada maxay kusoo kordhinaa aqoonta hadda jirto. daraasaddaada waxay kusoo kordhinaysaa real life-ka ama contribution. so write a segment of study looking for to general contribution. waxa guud ay ku yaboohayso. waxaa wax loo yaqaan limitation and delimitation of the study. macnaha hadda waa initial jabtarada joogta waxaad saadaalinay waxyaabaha caqabada kugu naqan karo. limitation waa wax loo yaqaanaa waa influence that the researcher cannot control. waxyaabaha qaarkood adigu control waa beyond your control. research-ka example haddii uu hadda coronaha oo kale imaaday waa limitation. qofka waa beyond his control. waxaa wax loo yaqaan delimitation
oo ah researcherka asiga wax iska reebaya. Example, daraasada raba inuu sameeyo waa narrow scope. Labadaas aan kala fahmay, limitation iyo delimitation. Limitation waxa waaye waa influence that the researcher cannot control, waxyaabaha adiga aadan control karo beyond control inaad iska reebto. Delimitation waxa la waxyaabaha adiga aad scope-ka soo koobayso. Example, daraasada sameeyna waxaan ka qaadaa secondary schoolska, primary aan iska dhaafaa, jaamacadahan ka qaadaa secondary aan iska dhaafaa. So qaab noocaas waxa la delimitation. So delimitation. So ugu dambeyntii marka qaybaha ugu dambeeya soo gaarnay waxay nooga wax loo yaqaano dependent variables and independent. So marka laga hadlayo ciwaankaaga waa inuu leeyahay dependent independent variables. So meesha marka laga hadlayo dependent independent waxa loola jeedaa waa variables who factor change or difference you study. Waxyaabaha la rabo qofka inuu daraasad uu ku sameynayo uu ka qaadanayo maxaa lahaa taagana iyo tiirsanay naqanay marka. So tusaale aan qaadano waxaa laga wadaa cause and effect iyo marka qaarkood related to waxyaabo laba arrin ka dhaxaysa. Example, amount of study inta aad wax baranayso waxay xiriir leedahay ama saameyn ku yeelataa academic performance-gaaga. So amount of study hadduu positive yahay academic performance wuxuu ku noqonaa waa positive. But attended haddii xaflada aad tagto maanta music aad ku mashquulsan tahay waxay xiriir leedahay negative leedahay academic performance. So marka amount of study waa independent, academic performance waa dependent. That is to attend waa independent, academic performance waa independent kana waa dependent marka. Okay? Example, a concept of independent case does not mean that all schools should be treated as independent. mar walba wixii hadda independent ah weligood ma ahaan independent way hadda independent weligood ma ahaan laakiin hadda waxay ku xiran tahay daraasada la sameynayo. Tusaale, amount of study iyo academic performance xiriir ka dhaxeeya. Academic performance iyo intention to go to university xiriir ka dhaxeeya. Haddii marka academic performance waxa ay dependent, laakiin hadda marka la dhaho academic performance iyo intention to go to university iyada waxay noqonaysaa dependent oo independent marka maxaa yeelay heerkaaga waxbarasho intuu la gaarsiisan yahay ay waxaa ku suurtagelin inaad jaamacad aado. haddaa ku guuldaraysto academic performance-gaaga jaamacad ma tegaysid. sidoo kale waxaa wax loo yaqaano mediation iyo moderator dhexda galaya oo dependent independent dhexdooda oo galaya. Example, study-ga waxbarashada iyo going back iyo xafladda aad inaad wax barato labada waxay xir leeyihiin academic performance-gaaga. Academic performance wuxuu leeyahay intention to go university. So dhaxduu galaa marka. Markaas waxa loo yaqaan mediator. Mana waxa la study oo inta joogto iyo going back xaflad qofka aado iyo qofka oo wax barto labadaba waxa kala saar doona academic performance. hadduu academic performance la fiicnaado waxa xaq leedahay intention to go university. haddaa ku guulaysato kan kale ma helaysid marka. taas waxa loo yaqaanaa mediator variable. ugu dambeyntii waxa laga yaabaa marka inaad qorto chapter summary oo ah wixii inaad soo koobto adoo aadan dib u soo wada koobiyeyna wixii do not write as original piece of qori. Keep your summary short, use your own words oo isticmaal xanaad daraasada waxay qosaysaa arrintaas problemkaas ee jira hadafkaas ayaan ka leeyahay limitationkaas ayaa haysto. So si kooban half page ama one page ku soo koob dhammaan chapterkii intaas ayuu naqanayaa marka. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much.